أما بعد أيها الأحبة في الله إلهي بام هذا إسكاله سبحانه عز وجل إلهي أن نقول كل مية فردقا السجاء وعن إلهي كبرية إنه خير كلا فائدة سنه لبم ملاحظة إنت أنا بالله بن محاضرة ذا سيد الله يدين شيء وعوان كذي هي صفات المتقين إلهي المتقين تانو دره ملاحظة كوبات وحيدا أوجين يدين مشي دونه لكن ووانو يا وعدي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ملاحظة اللبادنا وحوية si cibaadadaasi ay inoogu balballaarato inoogu barakowdo qof walba niyada iyo maqsadkaadu ha noqdo inaad ilaahay ugu dhawaato fadhigan isaga inaad ilaahay ugu dhawaato qof walba maqsadkaadu ha noqdo insha Allah salaad baynu hadda wada tukanay maghrib isku wax baynu sameynay laga yaabo inaynu isku wax akhrinay haddana waynu kala ajir iyo garaado badanna waxaasoo dhanna waxaa weeye niyada qofka iyo maqsadkiisa ayay u noqonaysaa ama kelimadda walaalayaal laydin iclaamiyey waa sifaatu lmuttaqiin dadka muttaqiinta tilmaamaha lagu yaqaano madkhal yar aan u sii sameeyo oo ah xaqiiqatu taqwa iyo wadaabituhaa taqwo waxa la yiraahdo iyo waxa qeexaya ama lagu qeexayo taqwadu wa al-amalu bi ta'ati Allah azza wa jal kama bayyana subhanahu azza wa jal ilaahay taacadiisa oo lagu howlanaado weeye sidoo rabbiba noo sheegay wattaqullaha واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين إلهي كعب سدا وأجادا إن هذا السجل لكل مدونتان مؤمنين تنو بشارة ومن العجيب آياتني مركا أي سيدا على ذا هي وحالجها اللي حالة شهوانية بحتة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين شهواب اللقودنا يا إلهي الله كعبسك هي الشهوة محاكا الدحية هل كاو حكاكا صباح يدرسي قفك مؤمنك يدون إنو تقيق النقضو qofka isaga talaabo kasto uu qaadayo mid adduunyo iyo mid aakhiro mid macaamil iyo mid caqiido mid cibaado iyo mid kastaba alla ka cabsi inuu ilaahay ka cabsado ilaahay subxaanahu wa tacaala ka haybaysto ka sariigto xusuusnaado ilaahay kama maarmayo ومن أجود ما ورد في تعريف التقوى قيحتان كذا waxyaabaha ay culimadu ka sheegeen waxyaabaha ugu qiimaha badan waxa kamida in la yiri wa an yaltazima almuslimu awamir Allah ta'ala qofka muslimka inuu awaamirta ilaahay uu laazimo oo uu joogteeyo wayajtaniba ma naha anhu wixii laga reebayna uu ka fogaado wa min al-ma'thuri an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waxyaabaha laga soo guuriyay waxa kamida inuu yiri Ali ibn Abi Talib taqwada markuu ka hadlayay at-taqwa al-khawf min al-jalil wal-amal bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dad li-yawm ar-rahil alla ka cabsi waxa la yiraahdaa in allaha jaliilka laga baqo ilaahi subhanahu wa ta'ala in laga haybaysto laga sariigto weeye wixii ilaahay uu kugu soo dajiyay oo waxyiga ahna lagu amal falo oo la dhaqan galiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala siismadiisa iyo deeqdiisa dadka uma simine waxa yar ee uu ku siiyeyna inaad ku qanacdo waxay doonayaan ahaadeen inta uu ku qoondeeyay ee uu ku qadaray lawxul mahfuudka kuugu qoran
inaad ku qanacdo oo ay ku deeqdo iyo wal-isticdaadu liyowmi raxiil maalinta qiyaame ee safarka loo yahay maalinta iyadaana in loo diyaargaroobo waxa loo sheegaya ee quraanka ay ugu badan tahay axaadiista nabiga ay ugu badan tahay la isugu waaninayana waa in loo diyaargaroobo weeye waayo goor aad dhimanaysa kama warqabtid goor aad maaragtay adduunyadan aad ka tegi doonto kama warqabtid maalinba maalinta ka dambaysana xaggeedaad u sii dhowaanaysaa marka la isku soo ururiyo biyo dhaca hadalka qeexitaanka taqwada warka biyo dhiciisu waxaa weeye allaa yaraaka allaahu xaydu nahaak walaa yaftaqidaka min xaydu amarak inuu alla subxaanahu wa tacaala uusan kugu arkin meeshii uu kuu diiday halkaa ha tegin meeshii uu ku yidhi inaan lagugu arkin sidaa ha samaynin inaadan samaynin meeshaa ha tegin inaan lagugu arkin weeye inuuna kaa waayin meeshii loogu talagalay in qofka mutaqiga ah ee mu'minka ah laga helo inuusan kaa waayin ayay ku soo urursanaysaa aad buu u wanaajiyey markii uu yidhi ninkii shaacirka ahaa khalli الdunuuba sagiirahaa wa kabiirahaa daaka الtuqaa wasnac kamaashin fowqa ardi shawki yaxdaru maa yaraa laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasaa dunuubta kuwooda yaryar iyo kuwa waaweynba ka fogow oo iska daa alla ka cabsigu wakaa sawir buu shaacirku nasiyo wuxuu yidhi waxaad ka soo qaadaa naftaada nin dhul qodxa badan ku socdo oo kale kaasoo ka digtoon lugta meeshuu dhigayo kaasoo kale noqo oo meesha aad lugta dhigayso meelay qodaxi kaa mudaysa hadday tahay dhigine meesha bannaan dhig dhulka qodxaha miidhana qodaxdii ka tallaabso meesha aad lugta dhigaysana ka digtoonow alla ka cabsigu waa isjirka noocaasa weeye inaad saa isu jirto weeye laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasaa waxa yarna ama dembi ha noqdo ama taaco ha noqdee waxaasi ha fududaysanin oo yuusan kula yaraanin maxaa yeelay buuruhuba quruurux yaryaroo isu tegay weeye buuraha waaweyn ee dhulka maaragtay ee lagu kawiyey waa dhagxaan yaryar oo isu tegay kadibna xoog bay yeesheen buur bay noqdeen axibbatii fillaah makaanatu taqwa alla ka cabsiga aynu ka hadlayno abla ka cabsiga aynu saa u soo qeexnay makaanada uu ilaahay u yeelay qiimaha uu ilaahay u yeelay subxaanahu wa tacaala ayaan wax yar ka tilmaamaynaa dhowr qodob qodobka koowaad amara allaahu biha cibaadahu caamma wa amara biha almu'miniina wa amara biha nebiyahu muxamedin sala allahu calayh wasalam alla ka cabsiga qiimaha uu ilaahay agtiisa ka leeyahay haddaad doonayso inaad ogaato ilaahay wuxuu amray addoommadiisa oo dhan dadka oo dhan buu amray wuxuu amray mu'miniintuu si gaara u amray yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waxaan u malaynaa 80 mar bay qur-aanka ku soo aroortay si gaarahu ahlu iimaanka alla ka cabsiga ilaahay ugu dardaarmay una faray sidoo kale nabigiisii moxameda calayhi salaatu wasalaam ayuu si gaara u amray alla ka cabsiga addoommada ilaahay markuu ilaahay amrayay muxuu yidhi yaa ayuha annaasu ucbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun dadow ilaahay ka cabsado ilaahay ka dhowrsada ilaahay subxaanahu wa tacaala iska jira oo xaqa uu idinku leeyahay iska ilaaliya wuxuu idinka mudan yahay ilaahay barta wuxuu idinka mudan yahayna yeela maxaa yeelay ilaahay waa midka idin abuuray kuwii idinka horreeyeyna abuuray waxaa intaa la idinkugu sheegaya waa lacallakum tattaquun inaad ilaahay ka cabsataan ilaahay wuxuu aayad kale ku yidhi wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun aniga rabbigiin baan ahay iga cabsada ummaddanna waa mid oo waa hal ummad weeye waa inay isgarabsataa anigana rabbigii ummadda loo ahaa ee la caabudayey baan ahay ee idin abuuray iga cabsada aniga ayuu allana leeyahay
إلهي وحو آياتك لكوير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آياتها فرض بدن إلهي سبحانه وتعالى ضدك أوردن إيو أهل إيمانك أيو الله كعبسك ومد أوردن أيو الله كعبسك وفريا نبي جيس محمد مركو سيجار ولا هالليين وعير يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين نبي الله إلهي كعبسه قضب وقضبك قضب كلبات الله كعبسك ووصية الله للأولين والآخرين waxaan idinka codsanayaa inaydan dhihin aayadahan horaan u maqalay oo teer iyo yaraantannadii baan maqli jirnay waxaani wixii ilaahay uu inoo abuuray weeye ilaahay baa inala hadlaya subxaanahu wa tacaala aayadahan waxa loogu celcelinayana waa inaynu ku waantowno waa inaynu iimaan ku kororsanno weeye marka qodobka labaad waxa weeye alla ka cabsiga makaanadiisa haddaad doonayso inaad ogaato waa wasiyatullaahi lilawwaliina waalaakhiriin kuwii hore iyo kuwa dambe uunkii tegey iyo kuwa iman doona iyo innagaba ilaahay subxaanahu wa tacaala baa inoo dardaarmay qaala tacaala walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu allah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u dardaarmay kuwii kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaara waa alumam assaabiqa ummadihii inaga horreeyey wuxuu u dardaarmay iyo idinkaba yaa ummata muxamed an ittaquu allaha inaad ilaahay aad ka cabsataan marka ilaahay doonitaankiisa sharciga ah iraadadiisa sharciga ah waxa ay keensatay an wasaa lilawwaliina waalaakhiriina taqwa allah kuwii hore iyo kuwa dambeba inuu allah subxaanahu wa tacaala in laga xishoodo inuu u dardaarmo dardaaranka ilaahay uu dardaarmayana inuu wax yar yahay meesha kuma jirto ee waa wax weyn oo in mar walba la isku baraarujiyo u baahan ahmiyadda taqwada waxyaabaha ina tusaya iyo makaanadeeda waxa weeye waa khayru zaadi wa khayru libaasi wa cinwaanu lkaraama waa zaad la qaato midka ugu khayrka badan oo aan marna laga maarmin qofka hadduu safar gelayo xitaa hadduusan sahay ahaysanin iskama tago qofka hadduu rabo inuu meel u safro isaga oo iska socdo boorsadiisa wato diyaaradda iskama aado dee diyaaradda iskama aado waa inuu isagu xoolihiisii uu haystay wax soo goostaa oo uu tigid ku goostaa waa inuu wixii uu ku mari lahaa meelaha uu sii marayo inuu sii qaato weeye hadduusan haysaninna dadku isiiya yidhaahdaa marka alla ka cabsigu waa sahay safar baynu nahaye alla ka cabsigu waa zaad kan ugu khayrka badan weeye qofkii haystana alxamdulilah ha yidhaahdo qofkan aan haysaninna lagama maarmay haddaa raadsado weeye wa khayru libaas dhar la xidho dharka ugu khayrka badanna waa alla ka cabsiga wa cinwaanu lkaraama waxaynu ku kala qiimo badannahay een ilaahay ugu kala dhownahayna waa alla ka cabsiga saddexdaas arrin een sheegay daliilkoodii dhegaysta marka qaala tacaala watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wattaquuni ya uli lalbaab zaad la qaato alla ka cabsiga ugu khayr badane aniga iga cabsada oo zaad qaata sahay qaata buu allana leeyahay وقال سبحانه إلهي وحايات كالكوير يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون غير آدنو وحان إدين سو دجيني در الحرتان أو عوردي نكو أسطرتان درك الله كعبسك ayaana ka khayr badan midkaas iyo wax walba ka khayr badan arrinkaas isaga buu Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay amma karaamada inay karaamo tahay ilaahay wuxuu yiri inna akramakum 'inda Allahi atqaakum kan idinkugu sharafta badan idinkugu qiimaha badan wa atqaakum kan idinkugu cabsida badan idan alla ka cabsiga makaanada uu leeyahay martabada uu leeyahay qiimaha uu leeyahay waxaana tusaya waa zaad waa sahay maadaama aan safarnahay waa dhar iyo wixii aan ku asturnaan lahayn waa karaamo iyo sharaf iyo gobonnimo weeye karaamo iyo sharaf iyo gobonnimo weeye inta waa madkhal taqwada iyo tacriifkeeda iyo makaanadeeda iyo ahmiyadda ay leedahay kelmadeenna هل كدجدي صفات المتقين واتن مرك هل كان يكبر لابنيسا دتك متقين تاه لما ربوا ولا ليال
qof walba inuu qumanihiisa qoorta isaga jiro oo uu moodo inuu yahay awliyo aan jannada kabaha looga siibaynin inuu isla quman yahay lama rabo waxani waa sifaat ilaahay lama kala xiga subxaanahu caza wajal ilaahay waa caadil ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xakiim dadka ilaahay uu alla ka cabsiga ka doonayo ee uu wax walba u sheegay tilmaamo iyo sifaat bay leeyihiin tilmaamaha iyo sifaatkaasi rabbi qur-aanka kariimka uu ku sheegay السنة النبوية آد بو ugu tibaaxay nabigeena عليه الصلاة والسلام aadna way u badan yihiin xoogay baynu marka ka tilmaamaynaa tilmaamahaas waxay horta marka hore isugu jiraan sifaat aqadiya iimaaniya saddex qaybood baan inoogu kala dhigayaa tilmaamo xiriir la leh iimaanka iyo caqiidada iyo waxaad aaminayso qaab fikirkaada waa qayb sidoo kale waxay leeyihiin tilmaamo camali ah oo ficli ah oo in la sameeyo la rabo ama cibaadaad ah ayay leeyihiin mutaqiintu waxay kaloo mutaqiintu leeyihiin tilmaamo akhlaaqi ah oo suluuki ahna way leeyihiin qaab dhaqan iyo wax lagu tilmaaman yahay iyadana way leeyihiin intaba waxaa inoo sheegaya aayadaha ugu horeeya fi suurati albaqara qaala tacaala alif laam miim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتابك إلهي مركو إشارة إلهي سبحانه وتعالى إنه سشك كترين أوشيغي أي إلهي وحو يري هدى للمتقين كوا متقين تا أيو تسأو يهي تسمع كوا سهنونين إياه كوا سهنون يهي كوا سوحت صالين إياه وكأن وحاد مدامرك إن إلهي لغيري يا الله من هم المتقون متقين تواكوه إنه مد ويدين مد سائله ويديه بعد مدة إلهينا وجوابي الذين يؤمنون بالغيب وكوا غيب كالرمية ويقيمون الصلاة صلاة أوغا ومما رزقناهم وحي آنسينينا غيب كمدانا ينفقون بحية والذين واكوي يؤمنون بما أنزل إليك wixii adiga lagu soo dajiyay nabi maxamed oo quraanka ah kuwa rumeeyo weeye iyo wama unzila min qablika wixii adiga hortaa la dajiyay oo la soo dajiyo kutubtii hore ah wa bil aakhiratina hum yuqinun horta tilmaamaha mutaqiinta Abdullaahi Xambalina ogama baahnidiin inuu idin sharxo عيد كلا أو ضدك أوقف صاحب بدنا إذا يوم بهندينه الله جل جلاله بانور شيء وقوة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لكن هديهم لقى فرصة وإنا وحشك شيكنا إلهي سبحانه وتعالى وحو آياتها سنوغو الشيغي دور الرموض أو كوي هدان شيغي النيئة ويقوه الريان الصفات العقدية عقيدة ذا إيمانكو ووحا قفك دقاتشنية ووحا قفك النحرك ينهد ويلية ووحا قفك إنو طاعة إلهي كو صبر كينية إنو معصية كصبرنا كينية haddii la imtixaanka inuu u adkaysto iyo sabirkana keenaya iimaanka iyo dareenka ku jira weeye ilaahay wuxuu ku sheegay marka aayadahaas aynu soo sheegnay al-iimaanu bil ghayb inay dadka ghaybka rumeeyay yihiin caalamkan wuxuu isugu jiraa caalamul mushaahada iyo caalamul ghayb waxaadan arag iyo waxaad aragtay inaad rumayso uma baahna waxba kaagama baahna جبريل وهذا اللح بقول أو جربب له باله هدو إنه يماد هذا من نبى إلهي ملائك ملها إيو جبريل ما تشري إيو من نده يا تشري هذا ما أنت مركي قبرك اللقود دقو أو اللقود دقو أو قبرك اللي جاك الصوت تقو قبرك اللي جاك الصوت تقو أو نفتي الله إلهي أول بإلهي باكو قليه ويسألونك عن الروح
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مركو هربا أيضا هذا كو جرتا هذا أوجين ماشي كو جرتا ما دقيه كاجا جرتا ما وضنيه كاجا جرتا ما كليها يا هذا أوجين إلهي باكو قليي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين روح ذا إلهي يجيكو قليي باقاتي ميت بعد نقطي واللغو دقي واللغو كنفي قد باللغو قليي روح دي بو إلهي كو سعليي ما قف ده يا بالله عليكم إنه قبر تشيرو وعذاب القبر تشيرو ونعيم القبر تشيرو والله يسصو صار دونا ما من سني قف ده يمي تشيرا بل الدنيا ده أول تشوغو فرعون واللغو كريواي الآيات البينات والحجج الباهرات واللغو كريواي وحكستا الله تصي إلهي سبحانه وتعالى آيات كسبها لغد الأخرية موسى الله صدره هارون بالله صدره دد بدن بالله صدره وحول بالله كريواي لكن مركو بدا كغر قومي أو به يبعاتك أي أفك يمارتي دقها يكقلين وكي يري هدان إلهي هدان وحان رمينا يا الذي آمنت به بنو إسرائيل في بنو إسرائيل اللي أي رميين بان رمينا حتى مدين الآن أي وحن رمينا يا برب العالمين مدين لكن وحو يري وحن رمينا يا الذي آمنت به بنو إسرائيل إيمان كيسي ما أنفعي حقيقة مركو أركي أو نبتي صوت هابتي فرعون إيمان كيسي ما أنفعي ما أنفعين مركا وحن مركا ويتسو التابسير هذو إن رميسو وتلقائي وأوتوماتيك وما باهنا الدلو إيو حجو إيو وحبا وما باهنا لكن waxa lagu kala tagay waxa weeye qaybka marka dadka muttaqiinta ah waa kuwa qaybka rumaysan weeye fayu'minuna bikulli ma akhbara bihi Allah wax kasto ilaahay uu sheegay bay rumaynayaan wa rasuuluhu rasuulkiisa uu sheegay oo min umuurin ghaybiyah arrimaha maqan aakhiro janno naar عذاب القبر نعيم القبر وحاسو دن او هدا اين اركين الله جل جلاله ملائكته ايي رمينيان ددك متقينتا maxaa yeelay looga qaateen baa u sheegay ilaahaygi iyaga abuuray baa u soo waxay ku soo dajiyay rasuul iyaga kamida u soo diray oo waliba looga qaateena kadibna waa loo sheegay mutaqiinta marka waa kuwa qaybka sidaas u rumeeyay weeye arrinka labaad ee tilmaanta labaad ee ayadu ay sheegtay waxa weeye waa umuurta aqadiga kamidka ah ee maqan waxa weeye al-yaqiin bil aakhirah wa bil aakhirati hum yuqinun muttaqiinta marka عندهم إيمان جازم بأن هناك حياة أخرى بعد الموت وهي دار الجزاء والحساب وحي رميسيهن noloshani inay nololi ka dambayso way yaqiinsan yihiin xayaatadii ay caloosha hooyadood ku jireen siday haddaba u rumaysan yihiin u yaqiinsan yihiin wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum say u yaqiinsan yihiin ayay waxay u yaqiinsan yihiin middan adduunyadana in laga tegi doono nolol kale ay jirto oo aakhiro la yidhaahdo aakhiradaasay yaqiinsan yihiin yaqiintu marka waa marka waxa ugu dambeeyo waa meesha ugu dambaysa ee iimaanka weeye yaqiintu iyada darajaad la insha Allah marka daartaas qiyaamana inaad rumaysan tahay waxay keenaysaa inaad ku tala gasho u sii shaqaysato inay daarul jazaa tahay marka meesha la isku abaal marinayay markay tahay waa inaad hadda u sii maaratay cibaadaysataa waa inaad hadda qurubaadka ku dadaashaa waa inaad hadda waxa sii hormarsataa weeye iyo sidoo kale meeshii la isku xisaabinay al-yawma amalun wala hisab maanta cidna kula hadli mayso waad sii daysan tahay laakiin shaqaa jirta barrina oo maalinta qiyaamana waxaa weeye waa xisaabun bila amal kun jeer baan sujuud haddaad tiraahdo cidna kaa yeeli mayso laakiin wixii aad soo shaqaysatay ayaa la isxisaabinaya tilmaanta kale ayadu ay sheegeen waxa weeye al-iimaanu bir-rusul iyo wal-kutub tilmaamaha kale umuuraha qaybka ah maqan ee aqadiga ah inaanu rumayna mutaqiintu ay rumaysan yihiin waxa weeye waa rususha ilaahay iyo kutubta ilaahay in la rumeeyo fayusaddiquna bi jamii'il kutub
التي أنزلها الله على رسله من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وحي إلهي وسودتشي أردن ويرميسيهن رسوشا الله صدرين ويرميسيهن مع يقينهم بأن القرآن الكريم هو المهيمن عليها والناسخ لها قرآن كان إنو يهي كي أها تحراع أها كتبتي هرأردن زبددي كتبتي هرأردن ميدي كتبتي هرأردن أي يقين سيهين iyo kii nasakhay waxaasoo dhan oo hadda maaragtay kutubtii hore inaan lagu camal fali karin quraanka in lagu camal falo la doonayo intaasi waxa weeye waa sifaadkii aqadiga ahaa ee aayaduhu ay sheegeen waxaan ku xijinaynaa as-sifaatu al-amaliyya aw al-ibadat oo aayaduhu ay sheegeen wabitaali dadka mutaqiinta tilmaama ay leeyihiin waxay aayaduhu sheegeen laba arrimood oo amali ah oo kala ah iqaamatu as-salah iyo al-infaq wa yuqimuna as-salata wali huwa fi'l sighatu al-mudari' wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun fi'lka mudari'na tahadduth tajaddud yufa'idaynaya wa kuwa salada ilahi ooga qad aflaha al-mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون وماشي marka culimadu ay leeyihiin marka qofka diintiisa waa salaadiisa qofka diintiisa waa salaadiisa marka salaada ayay oogaan oogitaanka wayuqimuna salaa waa min aqama waa min aqama oo rubaaci ah aqamana waxa laga wadaa shayga kulfada u baahan dadaalka u baahan ee adigoo fadhiya aadan sameynaynin inaad u istaagto u baahan inaad u diyaar garowdo u baahan inaad u xanjeerato u baahan inaad u xaydxaydato u baahan haddii kale wayuqiimuuna salaa lama dheheen marka ereyga aqaama waa toosin iyo taagid marka hore adoo fadhiya adoo jiifo aadan samayn karin adigoo maaragtay caajisan oo qaflo ku jira aadan samayn karin ee iimaanka kaaga baahan ee rabitaanka kaaga baahan ayaa waxaa la yidhahdaa wayuqiimuuna asalaa ومما رزقناهم ينفقون وحوي إلهي سبحانه وتعالى كما قدنين دتك مارتي كلا سترون موغيه الله سبحانه وتعالى عافمات بوكسيي حوق بوكسيي حوله إن كاسيي انت حولها لقاسيي أنا وحكبح أما زكدي واجب كذا نقطه أما تي صدقة إذا نقطه أما تي حقوق إذا نقطه مدى دوني ده وحوي ومما رزقناهم ينفقون لبدا صفنا ولبا صفه وعملي أما عبادة أما فعلها الله سمينيو نتيجة مركا وامحي مركي لآمنو وحي حق إلهي كيمد إيمانك ودسمو عمل أهان يفعل أهان وحي الله اسكدر والذين آمنوا وعملوا الصالحات مكلا هدو markii labada la isku daro maxaa marka natiijada soo baxday waa maxay ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflixuun kuwaasi hanuun bay ku dul sugan yihiin allah subxaanahu wa tacaala hanuunkiisa iyo diintiisa asraat almustaqiim ayay dhabarka ka saaran yihiin hanuunkaasaa markaa markab u ah wa ulaa'ika humul muflixuun kuwa unbaana liibaan kaleba ma jirto oo liibaanta midaas ahayn ulaa'ikada marka ismu ishaaraha waa mutawajjihun ila almuttaqiin dadka muttaqiinta baa laga wadaa sifaadka marka noo hadhay waxaa weeye as-sifaat al-akhlaaqiyya was-sulukiyya waana meel muhiim ah waa tilmaamo xagga dhaqanka ah waa tilmaamo xagga gobonnimada ah waa tilmaamo xagga qaab dhaqankaada iyo adiga dadnimadaada ka tarjumaya weeye tilmaamahaas ilaahay subxaanahu wa tacaala baa isnas fi aayati aali cimraan inoogu sheegay qaala tacaala wasaaricuu ilaa mawfiratin min rabbikum wajannatin carduha alsamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلهي وحو يري ودقدق
مغفرة إلهي سيدو إلهي دي كودن بدافي لها ودقدقة أو أفكنا كدها هدي حقوقها إن حقوق دي قدت وإلهي كعب صدى وجنة عرضها السماوات والأرض جنة بلر كذا يباحد يدو السماوات كي يدولك لبلارة لباحدة قفك سيد عادي شيء قدر كيسة يدمع ديسة شيء قدر كيسة در كيسة كدر دارتنا هذا إنه وصف إنه قريجن در كيسة يبلر كيسة كيس كدر در كيسة در سما جنة وحال يري بلر كذو السماوات والأرض سماوات كأن قرنين يدل كانوا إنه أرنا أنتم بحلق جاي يدل كلا أو فربضا جنوين كاسي أعدت للمتقين وحالو الدياري إلهي والدياري كوا متقين تا وكوا كهليني من هم يا ربنا وكوا الذين وكوا ينفقون بحية أو بحية في السراء والضراء حلقة أي فرمريهين أما أي وحير هايستان إيا حلقة أي لديهين أما أي برواقديهين انت بواكوي وحبحنتو أي دقن أتهاي دأبي إن أي وحبحيان واكو أي أتهاي دقن إيا دأبي أي أتهاي والذين ينفقون في السراء والضراء إذن ما أنت وحين أغاني إن تاجر تهاي أو حول أديك كاسو هرأت هايستو كما حدنا إن أدوح بحسو إلهي كما قدنين انت والله كسيه سبحانه وتعالى وحكبحي درهم بالغا يابا مليون درهم انو دافو مليون درهم انو دافا لغا يابا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه waxa weeye waa kuwa naftooda waxay u baahan tahay ka doorbida ee walaaladood waxa weeye yiraahda aday kugu santahay kuwa yiraahdo weeye alladina yunfiquna fi sarra'i wad darra horena waan u soo sheegnay inay sifa amaliye tahay sifada ayada wal kaadhimina al ghayr waa kuwa carada qariya caradu waxaan dadka adduunka dagaalamayo dhan caray ka bilaabatay caradu marka waa aafo nabigana la taqdab ninkii dardaaranka weydiisay la taqdab haronin marka wal kaadhimina al ghayr waa kuwa caradooda qariya carad markay caroodaan ha caronin lagu ma dhihin ha caroon xadiidkaas hore ku yiri laakiin markaad carooto xitaa waxaad ka carooto lagu sameeyo wal kaadhimina al ghayr way allahumma dad caroonayso markaasi maxaarimta ilaahay iyo xuquuqda ilaahay iyo maaratay u caro oo u qiiro laakiin caradan kale ee aan ahayn taas aan ahayn qofka dad mutaqiinta waa kuwa qariya aye halkaas oo isha fartana laga ma gelinin waxa weeye iska daa dad kale ilmihi aad dhashay markuu xoogay waxaad arkaysaa waxa weeye markiiba qofku waa caroonaya xaaskii dariskii maaratay kii adiga ku shaqeynayay kii maaratay waxa idin ka dhaxeeyeen ka fadliga kulayd kii fadliga kugu lahaa waxa weeye hadal han haduu ku dhaho qofku waa ismaraya mutaqiinta markaas tilmaamahooda akhlaaqiga ee suluukiga waxa weeye waa kuwa caradooda qariya wal caafina 'an an-nas waa kuwa dadka cafiya wallahu yuhibbul muhsinin wa natijadi wal caafina 'an an-nas dadka cafiyan maxaa yeelay hum mutaqiintu yata'amaluna ma'a rabbin 'afuwin ghafuur imisaynu innagu imisaynu ilaahi subhanahu wa ta'ala xuquuqdiisa ku xad gudubnaa imisaynu Allah subhanahu wa ta'ala xuduudiisa inu dardarnaa imisaynu dambowna imisaynu Allah ku khaldannaa imisa waxa uu sanaga mudnayn aan sameeynaa marka hadii ay jawaabtu tahay in badan dadka mutaqiinta ah waxay jecel yihiin inuu ilaahay iyagu cafiyo u dambi dhaafo iyagana dadka iska cafiyaan marka dadka ku khaldamay iska cafiyaan dadka ka gardaran bay maaratay iska cafiyaan wal caafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal ya'fu ala wal ya'fu wal yasfu wala tuhibbuna ay yaghfir Allah lakum fasfahi as-safha al-jamil ila wa an ta'fuha aqrabu lit-taqwa inaad cafisaan ba alla ka cabsiga u dhow wal caafina 'anil nas natiijadana waa wallahu yuhibbul muhsinin sifaatku marka waa maxay ayadu sheegtay ko المسارعة إلى المغفرة إن دنب دافك الله إلهي إنه دنب كود دنب داف إن لو دقدقو إلهي إنه كود دنب دافه
يوحو الله كوجودن بدافي لها إن أدقدقتو وصفة أخلاقية أو حرير كأذيك يا رب قاعدين كن حيو أي إمارة نقن ونقريسا الإنفاق في السراء والضرانة وإن آد حلقة آد حقيقة هيسو يحلقة آد وحب بدن هيسبا وإن آد إلهي درتي وحب حساب كظم الغيظ وعرضي أو قريو العفو عن الناس ضدكي ولا عافيو الإحسان وسمفلكي إلهي ومارت الله سمفلو وسيد إلهي يقول سمفلي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويه إلهي إحسانك الله سمين يواكا إحسانك الله سمين يدين تي الدعوة إحسانك لبدو والد الله سمين إحسانك إهلك يعررت الله سمين درسك يا قرابة وحوي أنك أنت زكلة حيوانك وحوي إن الله كتب إحسانك وحكس الشيء كس في كل شيء أي إحسانك دقي مركب وحلوب هي تريد وحلوب هي إحسان وحلوب هي سمفل باللوب هي نتيجة وحوي والله يحب المحسنين سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديثك يا أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بخاري مسلم بحديث الصحيح بربكم حديث كان ضدك مسلمين تهدي ما أنت الله بندي وحال كذا سير نقن وحير أنسلا فكرنا حال كذا سير نقن إلهي سبحانه وتعالى النبي يقول عليه المسلم أخو المسلم ورئيس حسدنا ورئيس جاتشوسنا ورئيس عروننا ورئيس دبتشيديننا ورها كلتجينا ورقبل الله كلا سميسن سننا ورها كلا قبناننا ورقبيل قبيل أو كلا قبناننا وي سأين تاو إيماننا حقوق ده إسكول ذهين ولالتني ماذا إلالية وح أذو أتشعش ولالك الله تشعله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض بديعة ولالك إنه قتأ الربي هكذا أذو هكو فلسين فلس بدع ما سمدع والس فلسان قبر ومارتي ولالك أضونا أذوها هم قريين تاسع مركب حيمنا يسائن أنا عداودنا إنسان إيمان وكونوا عباد الله إخوانا وفعل أمر الضومدي إلهيو ولا لا هذا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا لا غير غزة ما أنت من ظلمنا يا مسلم ما ظلمنا أيوه dadkii muxsiniinta ahaa waxay rabeen inay gaarsiiyaan baa waxa la yiri ma gaarsiin kartaan kuwan yahuuda ah ee iyagu la tajidanna ashadda an-naasi adawata lil ladina aamanu alladina wal ladina kuwan iyaga iga daa'an naxariis barteed balahayn ee cadaawad iyo colaytan kuway ugu daraa Ilaahay ugu tilmaamay khaa'imiinta ah ghaasibiinta ah inkaarta qabo kuwa iyaga iga daa لكن كوا مسلمين تشيغانيا له مانتا waxa weeye waxba lama gaarsiinayo walaalahood ma dulmeen ma sama dulminin garabkooda ma ka bixin ma kama bixin way ka bixin Soomaa haddana waxa laga yaabaa in Allaahna Ilaahay uu noo gargaar oo waxa weeye tii khilaaf islaami noo soo celiyo Ilaahay uu na hagaajin aan leenahay laga yaabaa al muslimu akhul muslim afka baarkiisa ma aha Soomaali u soo dhaadhac afka baarkiisuun ma afka wax laga sheegtoon ma aha المسلم أخو المسلم ها لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره محقره مقورصده واديك هو سيسا مده إن قميت باتاي مده لا يحقره إني الله كعبسي أباهم تهيبو حديثك نور شيغيو التقوى ها هنا حقرات هل كان يكتم هذا مركز أدوغو إسلوبو انتهي أما أدوغو إسلا تهي مارتي رير هبل يونين آن
isagoo kale ma uusan jirin markaasay xaqiraadda ficilka ah waxaa qalbiga ku jira ayay oo alla ka cabsi la'aanta ah ayay xaqiraaddu ka imanaysaa marka attaqwa haa huna saddex jeer buu nabigu ku celiyay laabtiisuu tilmaamay alla ka cabsiga iyo meesha wax laga maamulona waa qalbiga waa qaabkaad u fakarayso saddex jeer bixasbi imri'i min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim intii horeba nagu filayda maxaa loogu soo celiyey nabigii ilaahi subxaanahu wa tacaala hadalkiisu waa waxyi ilaahay wuuna yaqaanaa inay naga dhacayso xaqiraadda ayuu og yahay marka qofka waxaa ugu filan shar inuu walaalkiisoo muslima uu xaqiro haddanana deadlinekii baa naloo sheegay kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduh muslimiinta dhammaantood dhiiggooda iyo maalkooda iyo cirdigooda waa laa masaasa waa xaaraam in lagu xadgudbo maaha maanta marka innaga soomaaliya haddayna meel walba waa ololaysaa dagaallaa ka socda waa la dagaalamayaa dadkiina waa wada muslimiin haddana waxaan leenahay dacfiga xagguu ka yimid karaamo darradu xaggay ka timid waa alla ka cabsi la'aan alla ka cabsigaa wuxuu keenayaa inaad tawaaducdo inaad walaalkaa dhulka isu dhigto inaad adagay kugu santahay inaad tidhaahdo inaadan xaqirin inaad maaragtay khayr la jeclaato ayay alla ka cabsiga ayaa keenaya wa qaala maalik ibnu anas wuxuu yidhi radia allaahu canhu balaganii anna rajula min alfuqahaa waxay soo gaadhay buu yidhi nin fuqahadii ka mid ah ayaa kataba ila bni zubayr ibnu zubayr buu u diray warqad u diray yaquulu isagoo markaa leh oo ninkiibuu wax u sheegayaa muttaqiinta iyo tilmaamahoodu u sheegayaa wuxuu yidhi alaa inna liahli taqwa calaamaatun alaa inna liahli taqwa dadka ahlu taqwada ee muttaqiinta ah calaamaatun bay leeyihiin yucrafuuna biha lagu yaqaano lagu garanayo wayacrifuunahaa min anfusihim iyaguna waa isog yihiin oo inay maaragtay alla ka cabsiga inuu sidan yahay waa og yahay intaan maquuladana aan idiin dhammaystirin cumar ibnu cabdilcasiis waad og tihiin addowla alumawiya awowgii baa aasaasay marwaan ibnu xakam waxaa oga dembeeyey wilaayada adeerkii cabdulmelik kadibna waxaa oga dembeeyey abnaa'u cumuumatihi weliid iyo sulaymaan ibnu cabdilmelik kadib buu isaga khaliifatulmuslimiin noqday addowla alumawiyana dhib badan bay geysatay oo waa ninkii xajaaj ahaa iyo waad garanaysaan dhib badan bay u geysteen saxaabadii iyo taabiciyiinta iyo muslimiin badan markuu isaga amiirulmu'miniin u noqday ayaa dad colaad u qaba dadkii hore aabbayaalkii iyo adeeradii iyo awowyaalkii dad colaad u qaba ayaa markay isagay ku dhaga hadli jireen ama loo soo guurin jiray iyo waxay dhihi jireen inkaari ha ku dhacdo reer umowiyiin inkaar bay qabaan waa sidan qaar baa marka aflagaadoon jiray in dad dhintay la alfagaadayna dee lama ogola amiirulmu'miniinkii iyo khaliifatulmuslimiin in isaga la caayana diintuma ogola markaasaa waxaa la odhan jiray yaa amiira almu'miniin ninkani dadkiinnii buu caayayaa adna waa ku caayayaa maad edbisid ficlanna sharciga islaamka waa in la edbiyo wey qofka waxaa samaynayo markaasuu wuxuu dhihi jiray dacuuhu iska daaya utun horaa jirta utun hore ayaa jirta iska daaya ayuu ku dhihi jiray waayo adumaa u jawaabtid baa la odhan jiray lagu dhihi jiray mararka qaar markaasuu wuxuu odhan jiray radia allaahu canhu ina attaqiya muljam ina attaqiya muljam qofka taqiga ah waa xakamaysan yahay xakamaha waxaa weeye bahalka faraska halkan laga geliyo weeye ee lagu qabto waa qof maaragtay xakamaysan oo wuxuu rabo aan iska dhihi karin nin meelaha ka caacaytamay anigu u jawaabi maayo ayuu odhan jiray marka walaalayaal waxaan sii wadaynaa maquuladii maalik ibnu anas wuxuu dhihi jiray marka wuxuu u qoray ninkaasi alaa ina liahli taqwa calaamaatun yucrafuuna biha wayacrifuunaha min anfusihim waa kuwan marka
من رضي بالقضاء وكوى كرة للنقض قضاها إلهي قرشها إلهي وصبر على البلاء امتحانك الدنيا دي ابتلاءنا كو صبر وشكر على النعماء نعموينك إلهينا كما هد عليا وصدق في اللسان عرب كان الرنك الشيغة ووفى بالوعد والعهد بلنتنا أوفيا وتلا أحكام القرآن قرآن كإلهي أحكامتي سنة أخرية وإلهي يقول هذا أنكو عليها المر من رضي بالقضاء وصبر على البلاء وشكر على النعماء وصدق في اللسان ووفى بالوعد والعهد وتلا أحكام القرآن سير الأعلام النبلاء بعد قول كاسات كيليسان إن شاء الله إلهي وحير إن للمتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إذا نكسوك وقبيلنا إن شاء الله إن المتقين في جنات وعيون جنوين بيكوشيران إلو دردريا آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين هرا نصر شيخنا أيضا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قفك النار كعب صنية حساب كعب صنية هر استاق إلهي قيمينيا هرددك مدرقو هردد وبنان تهي وانا من الضروريات لكن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون حلقة هرابتا أما سحورتنا دنب دافك أي أفك كهيان وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حوله هذنا انت يلاقين لما شيء وفي أموالهم حق بقى هذا حوله هذنا حقوق بالقولي هاي حقوق داسو إليهن للسائل كان قعنته هرسنية هي والمحروم كان وحبه يسنين لكن أفقبات سدي كان أفقبات سدي مكان الله إذا كحشونية وحبنا عيننا هيسنين كاس ومحروم سائل كنا وامدك قعنته كاس كوغو دغانيه كو دغاyo waxay ku leh kuwaas inay xoolahooda wax ku leeyihiin bay og yihiin kuwa iyaga ah sifaadku markuu waa maxay naloo sheegay hadda aayaadkaas ay noo sheegeen waxa weeye oo hadii laga rabo sifaadka inaan iska baarbaarna la doonaya al-ihsan qiyamul layl al-istighfar fi al-ashar al-infaq ala as-sa'il wal mahrum inta qofkan ku sifaysnaanin آيات القرآن كهذا أنا أقرني إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هذا الصفات كاس هذا عن شكلين هذا الصمين آيات سكستو تجويد وآخرسو سكستو أترى الله الرم بدنا الله إلهي وناتشي waxaa laga rabaa adiga waa tilmaamaha waa sifaadka laga rabaa tadabburku waa sifaadka ma leedahay sifaadkaas ma leedahay way al-ihsan qiyamul layl al-istighfar fi al-ashar al-infaq ala as-sa'il wal mahrum ختاما يجبدي أيها الأحبة حذاري من الغفلة وعليكم بتقوى الله فإنها سبيل النجاة في الدارين waxaasoo dhan iyo aafadaasoo dhan waa qaflada waa hilmaanka waa moognaanta aynu moogannahay waxa aynu ku jirno iyo waxana laga doonayo ee qaflada aan ka toosno laakiin hadda ayadana lagu tujinayay aayadii haddana lagu tujinayay waxa weeye wahum can aayaatina gaafiluun aayaadka ilaahay qofka hadduuba maaragtay moog yahay oo uusan ogayn waxa weeye xaqiiqada uma dhaadhacay qofka isaga marka qaflada aynu ka digtoonaano qaflada aynu maaragtay ka xorowno nafteena aynu kala dagaalanno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay alla ka cabsigan aynu ku dadaalno waa wasiyatullahi lilawwaliina waalaakhiriin wa annajaatu fi ddaarayn labada daaroodba waxa lagu badbaado waxa weeye waa alla ka cabsigaa weeye alla ka cabsigaana
وإيمان وقلبك هذا وحكوين هذا حبنها هذونا أي كرم شيئا جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين